madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ka hadlay xadgudubka dowladda Itoobiya ee la damacsan tahay Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladda Itoobiya ay ku soo xadgudubtay madax bannaanida, gobonnimada iyo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed. annaga Itoobiya horeysaan mar ugu sheegnay laba dal oo daris ah yaan nahay oo aan lahayn choice ama khiyaar aan ahayn in ay cilaaqaad wanaagsan iyo heshiis iyo daris wanaag inay ku wada dhaqmaan ma ogiya aanan fursad kale ay haystaan aanay jirin. laakiin marmarka qaarkood madaxdana soo marto labada dhinacba yaad u malaysaa inay waxoogaa damaca iyo rabitaankooda iyo waxa ayagoon aadna u fiirsanin ummadahan iyo taariikhdoodii hore iyo wixii ay soo mareen in ay ka faa'iideystaan. qaladna waxa ugu daran midka aad intaad gasho ee aad aragtay in uu dhibaato leeyahay oo gacmaha kaga gubato ee haddana aad u noqotay haddana mar kale aad u noqotay mar kale aad u noqoto kaasa ugu daran. laakiin bini aadana leeyahay dhammaantiin waa qaldameena wax waa naga qaloocanayaan sidaa rabna waxa noo ahaan weynayaan. laakiin inaan cashar intaan ka dhigano aynaan ku noqonin waay. laakiin markaan ku noqono taariikhda aan akhri weyno oo taariikhda taxliili weyno dhibaatooyinkaas waa weyn ayaa ka dhashay. taariikhdii dheereed oo dhowrka boqol oo qarni ahayd markaan ka imaado tii 77 burbur iyo halaag badanaa ka dhashay. tii Mele Zanaawi ee maxaan ku raadaay 2006 iyona wixii ka dhacay wixii burburkii halaag ka dhacay waa la ogyahay. ra'iisul wasaare waagaas jooga Mele Zanaawi waa ogtihiin ciidamadiisa ilaa magaalada Muqdisho ay ka yimaadeen dagaalkii ka dhacay dhibkii ka dhacay meeshii markii dambe ay ku dambeysay waa la wada garanayaa burbur iyo halaag badan ka bacdi waa laga soo kabtay waa laga soo noqday waxaas khaladay ahayn yaa loo noqonina la yiri waa hora loo socdo. hadda marka ay Soomaali ugu rajo rooneed oo ay cagaheeda isu soo taagi rabtay dad badan ayaa jira dunida oo annaga dhaxdina Soomaalideennaba ku jira oo dagaalku uu u sahlan yahay oo aan ka baqin oo ku dhiiran laakiin nabadda ka cabsada oo ka baqa oo balaayo kale inay soo baxayso awoodiisa inay wiiqmayso mid kale oo aanu jeclayn oo awood ku yeelanayo nabadda dad badan oo sidaas oo arkaa jirto. maanta haddana ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo xukuumaddiisa waxay tustay Soomaaliya waa soo kabanaysaa waana soo socotaa inta aanay soo gaarin meeshii ku habboonayd ha laga faa'iideeyo oo taariikhdii fogeed oo weligeed Itoobiya ay bad ku raadi jirtay maxaa ahaay aan ka fursad haddaan haysanaa aan ka faa'iideysano. sidaasaa keentay in haddana mar kale isku dayga maanta jira uu yimaado. laakiin casharadii aan soo sheegno waa meeshii ku hore ku dambeey jiray oo ku dambeynaya ha dheeraato ha waxaysanto insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa in mid disaster iyo dhiig badan iyo ku daatay iyo dhibaato ay ka dhacdo inaanay noqonin yaan rajaynaynaa. laakiin waxa asalka ah waa damaca iyo fikirka noocaas ah oo waad maqlayseen in lagu hadaaqayo oo la dhahayay taariikhdii qaldantaan saxeena. taariikhda qaldantay waa maxay? Itoobiya inay bad heli weyday waay isku dayday qarnigii 19aad aakhirkiisii qarnigii 20aad bilowgiisii dhammaan waatan la yiraahdo ilaa balcad meel u dhawaa ciidamada Itoobiya soo gaareen ayagoo xeebta u soo socda oo dib loo celiyay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday dhameystirka dastuurka dalka, hanaanka doorashooyinka iyo halganka dagaalada ka dhanka al-shabaab. dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu celiyo mar kale waxaas oo tahdiidaad ah waxaan uga bixi karnaa kaliya inaan isku duubnaano. mucaaradadu masaalixda dalka kuma jirto iskuma mucaarado masaalixda dalka. war dalkan aan shabaab ka kacsan war dalkan aan Itoobiya ka ceshano iyo cid kasto kale soo haminaysa war dalkan aan isku soo celino aan midayno aan dhinac u wada jeedino war dawlad aan helna mas'uul naga wada ah dhamaanteen oo koox mas'uul nooga ahayn waxa aan ku taaganahay waa intaas raga qaarkiis marka nimankii nabadda ka cabsadaan aan lahaa inay inta argagaxaan ay mid microphone la boodo iyo mid meel xun istaaga inaan u kala qaybsanno ma aha. waxaan ballan qaadnay dalkaani iyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan kor oo meesha ugu sareyso madaxweynaha jamhuuriyadda ah ilaa meesha ugu hooseyso dawladda hoose ee degmo hebel ah dadku inaanu u talinin taladoodana aanu ka talinin qof aanay ayagu dooranin oo aanay u dhiibanin. noo hay adiga talada qof aanay dhihin meeshaan adaa mas'uul nooga ah qof aanay dhihin oo iska yimiday ama koox yar ay keensatay ama xoog iyo si maxaan ku raasida lagu ballamay aan ku yimiday
inaanu inta iska yimaado dalka aanu iska xukumin sidaas daraaddeed doorasho qof iyo cod aan ballan qaadnay doorashadaas qof iyo codkaa ilaahay idinkiis way dhacaysaa dalkeenna fursad kale ma laha dadkeenna waa in ay doortaan cidda matalaysa cidda go-aanka u gaaraysa cidda mustaqbalkooda qaabaynaysa cidda maxaan ku rahaa danahooda immediateka degdega ka shaqaynayso waa inay ayagu soo doortaan sidaas daraaddeed waxaan rabaa dadka inaan xasuusiyo maalan ayaan dhaweeto waxaan soo marnay barnaamij dastuurka qaybo ka mid ah in laga shaqeeyo la meel mariyo horaan u sheegnay dastuurka inaanu projecti caalamka lacag looga qaatay inaanu noqonin waa ka dhabaynay inta hadda ay shaqadu ay socoto hay-ad caalami ah oo dastuurka $10 ku sheegataa ma jirto waa sheegnay waxaan dhahnay haddaan experts u baahno khubara haddaan u baahno meelaha qaarkood waa weydiisanayna caalamka inna lagu kabo ilaa ay hadda maanaan weydiisan inta soo socota haddaan u baahno qof qabiirana waa weydiisanayna caalamka laakiin waxa aan qabsan karno horta annagu aan qabsanno wixii aan qabsan karnay markaan qabsanno waxa noo dhimanayo nagu adkaada aan kaalmo u raadsanno laakiin marka horeba haddaan soo istaagno waa in muxuu ahay kaalmo caalami aan helnaa nooma shaqaynayso waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inuu sheego waa ku soo liibaanay inaan dastuurka project laga dhigin inaan dastuurka dibadaha aan lala aadin waa ku soo caano maalnay waxaan qabnaa weli doodiisa inta dhimanna waa socotaa inta la soo dhaafar aayad quraan ma ahayn weli waa socotaa dadka Soomaaliyeed qofkii weli dood qabaa doodiisa waa open waa furan tahay waa la soo dhaweynaa waa la dhageysanaa laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed u sheeg hal mid ma furna dastuurka hal joojiyo hal hakiyo hana loogu kaadiyo taas wada furan ma waa xiran tahay laakiin dastuurka intaanan ka qabaa saana ila qurxoon saana ila qaab daran ha laga daayo saana fiicana ha lagu daro waa furan tahay waana la soo dhaweynaya ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan deegaanada maamulka Somaliland waxaan rabaa waxa soo haray taas waa Itoobiya Somaliland ayaa soo haray Somaliland waxba dhibaato ma jirto dhibaan u qabno ma jirto waa u duceynaynaa doorashooyinka soo socda iyo dimuqraadiyadda iyo waxa ay ku baaqeen inay si nabad ah oo guul ah ugu dhamaato ayaan rajaynaynaa wax kale oo gaar ah oo aan kalena ma jiraan wixii hore aan uga dhaanay mawaaqifteena hore un baan la joognaa dad Soomaaliyeed oo walaalaheen awaay dhibaato kuma qabno aan wada jirno meeshaasaan joognaa seen ku wada jiraynaa aan ka wada hadalno waanu ogolnahay